ولا شيء وهل كان كهذا شيء أيها وحيقول دردارنتي إن يكون السجود هام بواحد يقول دردارنتين إن نعرمها برنامج كسمافلك كشقيه يدون السجارة وحيقول دردارنتي واحد تري وحي دباته كاجي منيسو عبد الملك هو إسكداء وحويه أهل كاجا هو يضع يحاس كاجا وقت لقاضي كبح بيتري dadkaas waxa weeye way dhibaatoonayaan marka la xiro annaguna waan dhibaatoonaynaa baytiri waa hadal wanaagsan waxaan ka oranayaa walaashay dardaarankaas waa dardaaran wanaagsan laakiin waxaan oran lahaa dhammaanteen haddii aynu ka baqno geeri ama aynu ka baqno xabsi aynu ka baqno in la fogeeyo yaa u haraya ummadan yaa xaqa sheegaya adduunkan baynu u joognaaba imtixaan baynu u joognaa imtixaan ah inaad adiguna dhibaatootid ehelkaaga dhibaatoodaan cid ku jecel kula dhibaatooto naf la waayo la xidho saasaa ku dhacaysay nebiga sala allahu alay wasalam magaaladiisii baa laga eriyey saxaabadiiba muxuuha lagu laayey diintan islaamka ayna soo gaadhay aynu maanta haysanno waxay ku soo gaadhay in muxuu ahayay xaqa la sheego walaalayaal dardaarankaasi waxa weeye waxaan ka oran lahaa haddii aynu dhammaanteen wada hadallo aniga miyaa la xidhi lahaa aniga maxaa la xidhay anigu waxaan noqday dibigii la yidhi aynu dibigaa iska cunno waxa weeye wuxuu inoo soo jiidayaa bahalladu inoo soo jiidayaa markii la ogolaaday ay bulshada qaatay in aniga keligay la cuno waxa weeye waxa dhacaysa in muxuu ahaa dadka loo soo jeesto walaalayaal haddii aad diidi lahaydeen guud ahaan bulshadu hadday diidi lahayd in cabdimaalik la cuno oo aynu dhammaanteen aynu muxuu ahay xaqa iyo wixii diinta yani muxuu ahay ka dhana aynu ka hadallo waxa weeye cidna lama xidheen walaashayda qaaliga waan dareemayaa waxa weeye dareenkaagu iyo cid walba dareenkaa ii soo jeedinaysa waxaan dareemayaa inuu arrin wanaagsan yahay laakiin waa sax insha Allah biidni Ilaahi al-Kariim waa lagama maarmaan inuu qofku intuu ka badbaadi karo dhibta ka badbaado oo taa waan taageersana inta uu ka badbaadi karo uu naftiisa ka badbaadi karo uu ka badbaado waxaan ku soo gabagabaynayaa mar labaad walaaladeeda warbaahinta waad mahadsantihiin kulankan aad ii qabateen kolley waxa weeye saad sheegteenna waynu wada hadli doonnaa insha Allah biidni Ilaahi al-Kariim anigu waxa weeye idinka mid baan ahay idinkuna iga mid baa tihiin ana minkum wa antum minni waxa weeye ha ogolaanina anigana in si gaara lay saaro oo la yiraahdo waxa weeye ninkaasi iska sooca uu ka duwan yahay warbaahintii anigu waxaan ahay warbaahintii baan ahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh